بسم الله الحمد لله ثم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم وفقنا لما تحب وترضاه. إخوة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى أيام هذا دان إسكاله اللي نصر تجلي كلن كان هذا ما حن إيدين ولا مانت ولا ليال قصة يروم معام بدن oo faa'iidooyin fara badan ay ku jiraan ayaa maanta rabaa oo idin soo xulay inaan idin wadaago. waxaan leeyahay intaan qisada bilaabano walaalahayaga ee Instagram asxaabta Instagram-ku waxaan leeyahay nagu soo biira walaalaheena, Allah idin barakeeyo. nagu soo biira ayaan leenahay, gacan wada jiray wax ku gooyan run ahaantii. khayrkan wuxuu u baahan yahay in la iska kaashto. marka waxaan leeyahay Allah idin barakeeyo dhammaantiina. waan idinkaga mahadcelinayaa dhiirigelintiina iyo taageeradiina. video hadaad ka hesheen like-ta saaraysan. video hadaad ka hesheen like-ta saara. haddii aadan ka helin dislike saara wasaas. marka Allah idin barakeeyo. maanta waxaan idin wadaa qiso cajiib ah oo Bukhari iyo Muslim ay soo saareen. qisadan waxaa laga warinayaa Abi Hurayra radiyallahu anhu warda, saxaabigaas jaliilka ah. waxay dhacday qisadan waqtigii nabiyullaahi Daawud. nabi Daawud xilligiisa waxaa jiray laba haween ah, laba dumar ah, laba caruur ay lahaayeen. tu kastaba hal cunug ay lahayd. mid baa da ah, midna waa gabar yar. dabeetana maxaa dhacay maalin maalmaha ka mid walaalayaal, iyagoo meel jooga ayaa intay yey timid. yey ayaa ku soo dhacday labadii cunug mid ka mid ayay daftay yeydii. way ka dab ordeen dumar, waa taqaanaahay, war yey tagtay, hal cunugaa soo haray. tu kasta marka waxay bilaawday inay cunugeeda hoos soo gashato. tii kale waa la isla qabsaday. marka aniga iskale cunug, aniga may ana cunugaada waay wax la dafi, may kayda war ana iskale cunugan, warkaada waa la dafi. waa la ismar way walaalayaal, waa la saxaxagtay. dumarkii xagashay bilaaween. waxaa la yiri marka nabiyullaahi Daawud noogay hana kala saaree. waa nabi ilaahi Soomaha, nabi ilaahi noogay la yiri. waa la soo baxay iyagoo cunugii wata. nabi Daawud ayaa loo yimid calayhi wa calaa nabiyina salaatu wasalaam. waxay dhaheen nabi allow, arrintaana dhacday, hal cunug ayay daftay, cunugan soo harayna waan isku haysanaa, bal na kal saar. tu kastaba goonideeda ayuu u waraystay. markuu u waraystay walaalayaal, tii da'da ahayd ayuu u xukumay cunugii yarka ah. tii da'da ahayd ee weyneed ayuu sii cunugii. wuxuu yiri adiga askare qaada. wuxuuna saas u sameeyay waxay tahay midda da'da weyn walaalayaal, wuxuu arkay ayadoo baroorinaysa oo oyn ah qof weyn oo da ah. miya been sheegi adigan soo fiirnay maxaa sameyn lahayd? qofka weyn miyaad runtii macnaha aad rumaysan lahayd hadalkiisa mise qofka yar? dabcan qofka weyn. wasaas nabi Daawud wuxuu kaloona sameeyay, wuxuu kaloo uu ku miisaamay uu yiri midaan yarta ah way yartahay oo way dhalaysaa, midaan weyntana way dhalmaguuso halkaan cunug ay ka naxdaa. marka wuxuu yiri halkaan cunug bal iska midaan kale waxaa laga yaabaa inay cunug hesha ay dhashaa laga yaabaa. wuu kala xukumay, way kala tageen. nabiyullaahi Sulaymaan oo isagana nabi ilaahi ah oo laba nabi ay kala yihiin oo isdhalay. nabi Daawud iyo nabiyullaahi Sulaymaan waa wiil iyo aabiis oo isdhalay. isla macnaha hal waqtina way wada noolaayeen. waa rasuul, waa rusul ambiyada ilaahi ka mid yihiin. طيب نبي
ilaahay kale ayuu soo maray nabiyullaahi sulaymaan ay soo maray marka arrintii ay u sheegeen nabi sulaymaan wuxuu yidhi cunigii halay keena u fiirso walaalina si fiican u dhegeysta arrintan waa arrin cajiib ah oo dhammaanteena anfacaysa waaqaca maanta jirana waxyaalo badan ayaan kaga shidaal qaadanaynaa aan kaga faa'iideysanaynaa cunigii halay keena uu yidhi cunigii ayaa la keenay labada dumar way yimaadeen wuxuu yidhi yaa cunigaan dhale tukas waxay tiri sidii markii hore hadalkii hore ku adkaysteen anigaa dhale tukasta waxay leedahay anigaa dhale war yaa dhale cunigaan maad sheegtaan waxay dhaheen anigaa ninka tukasta waxay tiri anigaa dhale cunigaan wuxuu yidhi mindi halay keen haddaba mindi halay keen wuxuu yidhi cunigaan waan idin kala bari dhaxda intaan ku kala dhufta qaybna waxaan siinay mid qaybka kalena mid kale aan siinay mindida loo keenay walaalayaal markuu saaray uu rabay inuu gowraco ila nabi ilaahay waa gowracaye maskaxdooda iyo imtixaano meeshan kala jeedahay ayaa tii yareeda ishaan weysay tii kala oo weyneed waa iska aamus walaalayaal hoos fiirsi tii weyneed ayaa ishaan weysay markaas ay soo bood waxay tiri raximaka allah ku naxariistee iiday dad cuniga ha gowracin ayada siiyay tiri qaalat a'tiha si ayada nabi allah badalkii aan arki lahay cunig jirkeyga ka soo go'ay oo horteeda lagu bireenayo isagoo nool hal qaatay tiri u fiirsi dabcan waa sidaasoo hooyo wax dhashay weeyaanoo meel baa danqatay anaga maanta hadalkaas oo kale mana mar lahay walaalayaal kaba soo qaad tusaale yar meel yara waxayna ka tusi duq weyn iyo gabar yaroo is ceersanaya agtaada soo mari yaad qalad ka saar lahayd dhammaanteen waxaan dhihi lahayn war gabadhaan yarta inkaarta qabto balaayada qabto duqdaan maxay ka rabtaa duqda maxay u ceersani gabadh yartaha dusha laga saar lahaa wixii wax dhib oo dhan ayaa dusha laga saar lahaa maxaa yeelay qofkan waa qof weyn waa da been ma sheegaya leey waa la aamin hadalkiisa soo maaha طيب نبي الله سليمان markuu wuxuu yiri cuniga waxa dhalay mid yarta dhalay aadashu yiri mid kale wuxuu yiri waxba ma dhalin meesha ka wuxuu yiri albaab bax qayaanad meesha joogtaa nabi daawud muxuu soo xukumay mid weyn oo soo xukumay nabi sulaymaan muxuu xukumay mid yarta ah ayuu si maxaa yeelay imtixaan markuu imtixaan mari kadib ayuu si wuxuu yiri haddii beer wax dhalay ama jirkeeda uu ka soo go'i lahaa way ka danqan lahayd uu yiri ee meesan aamus lahayn maadaama midaan yarta ay ka danqatay ayadaa dhasho yiri sidaas aan ugu si haddaba qisada maxaan ka fahmaynaa qisada waxaynu ka fahmaynaa walaalayaal waxa weeyaan faa'iidooyin fara badan ku jira dadka wax kala xukumo garsoorayaasha maxaakiimta jooga ama maxaakiim yeesan joogina meel kala ba ku kala xukumaan meel dheer ba u raadin gurigaada dhaxdiisa caruurtaada dhaxdeeda hadday isqabsadaan xagasha ay bilowda waa inaad taqaanaa hab ikaarta lagu soo saara midka qaldan iyo midka saxan lagu soo korsaar waa inaad taqaanaa sidii nabi ilaahi sulaymaan uu sameeyay nabi ilaahi sulaymaan iyo nabi daawud waa laba nabi waa rusul weeyaan waa anbiye ilaahi haddana labadooda alla ka cabsi iyo cadaalad ay wax ku saleeyeen laakiin nabi ilaahi sulaymaan arinta wuu farsamay wax dheeraad ayuu la yimaad meesha waxa loo baahan yahay walaalayaal maxaakiimta ayaa aad iyo aad arrinta ay ugu socotaa dadka maxaakiimta ah iyo dadka wax kala xukumaya waa inay garaad lahaadaan
maskax dheeraad ah iyo farsamo dheeraad waa inaad la timaadaa ood ku soo soortaa midka tuuga ah ama midka qayaanada wada waa inaad ku soo saartaa. marka cadaaladda waa inaan ku dadaalnaa, alla ka cabsiga waa inaan ku dadaalnaa, hubsiinada waa inaan ku dadaalnaa. hubsiina hal baa la siistaa, hubsiina hal baa la siistaa. shayga inaad ku degdegto maaha. waxaa laga yaabaa qof ka mid ah labadan qof kuu soo dacwoonaya mid ka mid ah inuu aftahan yahayba, inuu af mishaar yahayba, oo midkan kala ka aftahansan yahay laga yaabaa. midkan kala oo laga gardaran yahay waxaa laga yaabaa inuusan wixiisa caddaysan karin, oo sida loo hadla inuusan garanayna laga yaabaa. soo ma dhici karta? waa dhici kartaa. adigana marka waxaa laga yaabaa inay ku sirta ninkan aftahanimadiisa iyo sida wax u soo dhacsanaya laga yaabaa. gabadhan dumarka naagtan weyn duqda ah cunuga la gowraca markii la yiri kamaysan danqanin, maxaa yeelay waxay rabtay inuu cunuga dhaxdooda ka baxo bedelkii gabadha ay qaadan lahayd dhaxdooda inuu ka baxo rabtay. saas darteed waxaa arkaysaa qof haddii kobta ay ka go'do wuxuu rabaa dadkoo dhan inay kobta ay ka go'do. balaayo lagula qabaayo balaayo weyn ma aha, saasay dhahan dadka soo maha. saas darteed qof xanuunsan agtiisa caafimaad ha ku sheegin, qof gaajaysan agtiisa wax ha ku cunin haddaadan waxba siinaynin, qof faqiir ah agtiisa lacag ha ku titirinin, maxaa yeelay ishiisa ayaa ku galaysa, halis weeyaan. marka haddaba wixii kala aad ka fahanteen ileen anigu hal iyo laba un baan sheegay, faa'iidooyin fara badan ayaa ku jiro oo idinkaaba laga yaabaa inaad iiga badan tihiin waxyaalo badan. soo qora, allah idin barakeey waxaad ka fahanteen. like-tan saara, walaalihiin la wadaaga. وإنه فيديو وحي هدو إلهي يراد. هذا وبالله توفيق، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله.